لا بيجري ان حاتم الأصم ayaa waxaa la weydiiyey salaadaada bal ka waran iyo salaad saad u tukataa hadii hadda lagu yiraahdo salaad saad u tukataa markaasuu wuxuu yiri idaa xaanat as-salaatu salaada markay soo dhawaato asbaqtu al-wudu horta weysada waan si fiican baan u weysaystaa haddaan rabo inaan weysaysto weysada waan ku xeel dheeraada ma aha inaan iska gaarsii kaliya iska gaarsii dhalinyarada waxaan arkay markuu weysaysanayo timaha ayaa u shanlaysan wuxuu ka baqaa timaha inay ka jabaan meeshaan saa u dhaqayaa uu ka tagayaa foodi xataa biyaha ma gaarsiinayo waa nin aan isbaaq alwuduu dan ka lahayn laakiin asbaqtu alwuduu biyihii baan si fiican isu gaarsiinaya markaan si fiican u weysaysto wa ataytu almawdica alladii uriidu salaata fiihi meesha aan ku tukanayaan imaadaa meeshaan ku tukanaya markaan imaado fa aqcud waan fariistaa fiihi dhexdiisa waxaan ka bilaabaa waan fariistaa xoogaa muxuu yidhi xataa tajtamica jawaarixii ilaa xubnahaygu ay soo ururaan ilaa qalbigayga aan mas-uul ka noqdo xubnahayga aan kontaroolo fakerkayga aan soo gaabiyo adduunyada aan ka soo dhexbaxo waan fakeraya xoogaa baan fadhiisanaya uma markaa maxaa dhacday uqaamu lii salaatii salaadaydii baa loo aqima salaaddii baa la ii aqimaa xoogaa baan iska fadhiyaa hadduu taxiyatul-masjid tukaday salaaddii faradkeed buu sugayaa markii salaada la aqimo maxaan sameeyaa waan istaagaa wa ajcalu alkacbata bayna xaajibaya kacbadii oo dhan baan wejiga dushiisa soo saartaa si ana ujeedo oo kale kacbadii waan ujeedaa markaan tukanayo waxaan ka soo qaadaa kacbada albaabkeeda inaan taagna markaasuu wuxuu leeyahay wasiraata taxta qadamaya jidkii siraadna lugahaygaan dusha hoosteedaan saaraa si aanoo jidka siraad dul taagan markaasuu wuxuu leeyahay waljannata can yamiinii jannadana midigtayda jannadii oo waxaan ujeedaa birqaysoo iftiimayso midigta iga xigta wanaara can shimaalii naartiina bidixda iga xigtaa saas wuu sawiranayaa qofku waxbuu sawiranayaa wa malaka almowti waraa'i malaku mowtkiina gadaashaydu taagan yahay wuu cayrsanayaa baangad buu ila daba socdaa isoo daba socdaa wa adunnuhu aakhira salaatii waxaan isdhahaa salaadan baa adduunka ugu dambaysa middaan un janno ku gal baan isdhahaa fii ninkan wuxuu sawiranaayo isagoo jidka siraa dul taagan hortiisa maxaa taagan kacbadii midigtiisa waa jannadii bidixiisa waa naartii malakumood baa gadaal socdo oo raadinayo raba inuu qabto salaadan waa tii iigu dambaysay ninkaan intuusan iqabanin waa inaan salaadan ka gaarsiiyo uma aquumu waan istaagaa buu yidhi bayna yaday alrajaa'i waalkhawf anoo salaadayda dhex dhigaya raje iyo khawf dhinacna ilaahay baan ka baqayaa dhinacna waan rajaynaya mar waxaan is leeyahay ilaahi waa ghafuuru raxiim marna waxaan is leeyahay ilaahi waa shadiidu alciqaab baan is leeyahay intaasoo dhan waa salaada dhexdeedii markaasuu wuxuu leeyahay wa asjudu wa arkacu muxuu yidhi wa ukabiru takbiiran takbiir baan takbiirsaa bitaxqiiqin anoo sugaya allahu akbar baan leeyahay wa aqra'u bitartiilin qur-aankana tartiib baan u akhriyaa khushuuc wa arkacu rukuucan atawaadacu rukuucaan ku tawaaducaya baan rukuuca rukuucaan miskiin iska dhigayo wa asjudu sujuudan bitakhashuc sujuudaydana waan iskhushuuciyaa weligiin maaragteen mukulaal shimbira gaadaysa oo kale qolley gaadaysa sideedoo kalean isu miskiimiya markaan sujuudaya saas oo kale marka maxaa ka dambaysiyaa wa atbacuha alikhlaas ikhlaas baan ka dabageeyaa ilaahay dartii waxaan u samaynaya ilaahay dartii qofna dan kama lihi ogaada qalbigaygaa saa dhahaya war waxaa dhaad rabtaan dhaha idinka anuma kala jecel ilaahay baan u tukanaya marka kadib maxaa dhaca uma laa adrii ma ogi salaaddii ma la aqbalay mase ma la aqbalin shaqadayda ma aha ilaahay baan u dhiibay waa nin ukumihiisa or intuu dambiil ku riday ilaahay u dhiibay intaas kadib anu shaqo kuma lihi qofku markuu tukanaya hadduu saas yahay oo uu saas u fakerayo ikhwaanii salaadiisa wuu ku khushuucaya